بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وسلامتهين وهبين أحد وسيلة يسوق ليسو وحنعاود هلكن isugu nimid barnaamij aynu ku xuseyno dhammaan mujaahidiintii ku shahiiday dagaalka argagixisada ka dhanka ay ka socda dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale aan ku taageereyno geesiyada macawisleyda ee bilaabay dagaalka afar bilood jirsaday ee lagu la dagaalamayo kooxda argagixisada ee al-shabaab barnaamijkan waxaa kala socon doontaan telefishinada Hon Kalsan iyo sidoo kale telefishinka qaranka ee Soomaaliya SNTV dhammaantiin waa salaamantiin waqtigiina qaaliga halkan waxaa caawin la jooga marti sharaf qiimo badan oo ku jiro ama ugu horeeyo safiirka Soomaaliya ee dalkan Britain mudane Ahmed Khayr sidoo kale qonsulka Soomaaliya ee Kuwait Abdi Umar iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ku-xigeenka gobolka Banaadir mudane Ibrahim Dheere iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan mudane Laqanyo sidoo kale waxaa qadka telefoonka soo gali doona mujaahidka weyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Ali Jayte dhammaantiin waa salaamantiin barnaamijkan waxaan ku furan doonaa aayadaha quraanka kariimka waa kan Xasan Kaafi Culuw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وما سنتهاي عبد الكافي علو يا أيدها القرآن الكريم كا مركلة دمانتين وما سنتين وقتنا قالقة إن هالك العوة مادين إذنكم قاركين كيمن ميلا فك سلوك لنا أدل قادتين وحنيم كفر دونا برنامج كنا وعاوة ودارين هاي حسوس تعسير دمان مجاهدين تكوش هيدا دقالك كنا كارج حسدا gaar ahaan waxaan caawa si gaar xusi doonaa mujaahidkii weynaa Allah u naxariisto Xasan Maxamed Xasan Tuure sidoo kale waxaan halkan barnaamijkan uu caawa daaran yahay taageerida geesiyada macawisleyda ee bilaabay dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaan imika mikrofoonka ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain isla markaana ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadan quruxda badan Qaali Xasan Cadow Beerlula بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صومالي هنولاتو صومالي هقوليستو عدوك الصوماليات هجبو داد كان من حياشة نفين الديد دينين عرورتا علماء هوينك دلانك ان دينين نفين الديد هجبانو قوليستا ذكرم بسم الله الرحمن الرحيم وحا عاوة aan halkan isugu nimid marka ugu horeyso anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK isla markaasna aan caawa si qaas aan ugu hadlaayo jaaliyadda reer Hiiraan ee UK oo dhan waxaan caawa halkan aan isugu nimid inaan caawa aan macnaha u barardiiqno oon fariisin u sameeyno macawisley oo ah dadkii la diriiray manaxayaasha naf in nolol diidka ah diiday heeryada gumaysiga diiday diintooda iyo dalkooda iyo calankoodaba in lagu soo xadgudbo diiday ayaan caawa taageeris iyo fariisin u sameeynay waxaana leeyahay caawa waxa kale oo leeyahay maadaama mudanayaal iyo marwooyin aad uga soo qayb gasheen si xawli ah mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinayaa runtii dalkeena Soomaaliya wuxuu ku jiraa golof colaadeed uu ku jiraa waad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu macnaha ku talaabsaday in lala diriiro kana go'an tahay dadkan manaxayaasha naf iyo nolol diidka sidaa darteed macawisley waxaan leenahay ha guulaysato macawisley waxaan leenahay ha guulaysato halgankeedana ha ka mar dhaliso runtii macawisley waxay noqotay
waxay noqotay dhiig joojiyihii shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan maalkooda iyo dhiigooda iyo xoolahooda iyo diintoodaba lagu tumanayay waxaan leenahay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed mar walba waa inaan la garab istaagnaa ciidankeena qalabka sida iyo ciidanka deegaanka Macawisley hil iyo hoobo inaan la garab istaagno waaye sidoo dagaalkaasna u bilaawmay ilaa haddana taageerista iyo dhiig joojinta waan wadnaa waxaan u mahad celinayaa qabanqaabadii xafladan gabdhihii igala soo shaqeeyay oo runtiina inta halgankan lagu jirayna habeen aana seexanin Soomaaliya halgankan maalinto bilaam ilaa hadda gabdhihii soo jeedaan rabaa goobta inaan ka qiro waxaa ka mid ah Nasra Qafaal waxaa ka mid ah Firdawsa Dhooba waxaa ka mid ah Jamiila Faarax Dhalaweyn runtii been lama sheege xoog iyo xoolo iyo maskax waxaan lahayn dalkeen iyo dadkeena waa la garab istaagnay intay nagu jirto xayaatane halganka hadda maanta socdo waa SYL muriyadaheena furayna dahabkeena furayna waa la garab istaagayna waxaan leeyahay halganka yaa laga gaabinin cadowgana ha lala dagaalamo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo cadowga Soomaaliyeed ha jabo hadalna hilmaan kuma jiro madaxda sharafta la isteedka fadhisana waxaan leeyahay soo dhawaada ahla wa sahlan wa billahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh معبسنو مرعرر عدمنو مهجونا لمعي إذا كهيلا معوز بيلا الدعود الدوين حوال وما سنتهاي قالي sidoo kale caawa waxa halkan la jooga aan loobay fanaaniinteena Soomaaliyeed mudane Oosi Kaynadiid Axmed Weyne iyo Nafaxaad iyo asxaab kale oo fara badan ay halkan noo joogta iyo farsamayaqaankeena sidoo kale barnaamijkan waxa ka daawaneysaan telefishinada Kalsan iyo telefishinka qaranka ee Soomaaliya SNTV waa ma santiin waxaan iminka waxa goordhow qadka telefoonka soo gelin doonaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mujaahidka Weyn Cali Jayte balse marka hore waxaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa mudane Maxamed Xuseen Culow oo kaatu dhamaan ka soo qaybgalayaasha xafladan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh qof waliba maqsabkiisa oo meeshan ku joogo mudane iyo marwooyin sida wanaagsan ee xafladan uga soo qayb gasheen aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaan waa idin mahad celinayaa madaxda marti sharafta ka soo qayb gashay kale halkan joogta fanaaniinta qolada bahda saxaafadda aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaan kadib waxaan rabnaa insha Allah halkan in uga tacsiyeyno mujaahidiintii ku shahiiday dagaalkii xaqa ahaa ee lagu la jiray nimanka qawaariijta ee nabadiidka ee Soomaaliya nolosha u diiday dagaalkii lagu la jiray intii ku shahiiday waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inta ku dhaawacantana waxaan leenahay oo dhaawaca la il daran ilaahay caafimaad ha siiyo inta dagaalka ku jirtana waxaan leenahay ilaahay ha guuleeyo mujaahidiintaas oo ugu horeeyo mujaahidka weyn Allah u naxariistay gaashaanle Xasan Maxamed Cusmaan Tuure oo maaragtay geeridii xanuunka badnayd ee dhacday maalmihii la soo dhaafay dadkii ku shahiiday dagaalkaas ka mid ahaay inta ka bacdi walaalayaal gobolka Hiiraan ama dhammaan Soomaaliya inta dagaalada ka socdaan inta anagu aan ka warqabo gobolka Hiiraan dagaalo ayaa ka socda wali inta badan waa la guuleystay dagaalkuna wuu socdaa dad badan oo xodogaala oo anigu kulay waxaygu waa xodogaalnimadeedu waxay ku saabsan tahay kaliya inaan maaragtay ii sheeg telefoon kula xiriiro dadka maaragtay mujaahidiinta dagaalka wada oo qolada maamulka ugu horeyso gudoomiyaha Cali Jayte waxaan nasiib u helnaa caawa insha Allah aad dhageysan doontaan isaguna halkaan inuu ka soo hadlo ayaan nasiib u yeelateen oo isaga waxay warbixinay isaga nasiib doona intaas waxa dheer walaalayaal waxaan isugu nimiday inaan nimankan maaragtay ii sheeg si aan u soo gabagabayno oo dagaalku hadda wuxuu mariyaa xilli gabagaba ah dawladda Soomaaliya aad bay ugu mahadsan tahay sidii shacabkeedu u garab istaagtay laakiin gobolka Hiiraan culeysyada ka jira ayay xafladani caawa ku saabsan tahay macawisleyda gobolka Hiiraan inaan caawino wixii aan tari karno inaan ku caawino wixii aan tari karno macawisleyda inaan ku caawino walaalayaal waxaan codsanaynaa qof waliba
waxa weeyaan qofkii 3 jeer wax cuni jiray maalintii inuu hal mar wax cuno ama 2 jeer wax cuno oo inta kale oo macawisleyda ugu deeqo ayaan rajaynaynaa maadaama aad maaragtay sharafka iyo aad u nisba sheeganaysaan iyo maaragtay ii sheegay baahida loo qabo dalkii oo nabada in lagu noqdo dadka suura gelinaya inay yihiin waxaan jeclaan lahay walaalayaal inaad si kal iyo laaba gabdhuhu waa safka hore ragga ayaan maxoogay caawa dhaliishu xaggooda ay u badan tahay wax qaribina ayagay u badan yihiin marka fariinta ragga hal la gaarsiiyo ragga Soomaaliyeed especially reer Hiiraan waxaan ka codsanaynaa in ay wax ogolaadaan oo wiilasha walaalahooda macawisley oo dagaalka ku shahiiday oo agoonta leh oo dhaawac leh oo kuwa hadda dagaalka ku jira leh in la siiyo wax allaale wixii lagu taakulayn karo madaxda ka soo qayb gashana waa mahadsantihiin وصلى الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتهاي أنا ما سنتهاي مدن علو شخصيا كسوكو هيران إن أدلو كجتهاي أنا جا هيران وحيلا ده تاريخ جونية مشارك يجوه الرئي وحقيقة بلدوين شركة نيشن لينك وعصوستا كنت $1 هاد إنه حسن بعر وهذا يوكي جوجا عمر تيلو أي مضحكها فرن هيران مقالة لو فرن هيران عنتك عون جرو عنت معان هوتيل الله محميرنا وسيحن جري وحصستان لكن حلقة بالشجاع صوبتها ده لو كان هذا حلقة شجاع وما سنتين كسروا بسم الله إنا كسر نقد مجعلين لكن وحن كتجه هذا الإلمان كمجرى هو يقرن أو رنتي دل كان مجع يقيمة يكله وحن لا يهي ماما مريم قرن ماما مريم جعيل مريم محمد جمعاله runtii Maryan Maxamed Jimcaale maama Maryan waa maama qaran runtiina dalkan 20 sano iyo 30 sano ka shaqeynaysay waxaana lagu shaqeynayay mabda'eeda xoogeeda iyo xoolaheeda sorry aan ku leeyahay maama qaran sidoo kale waxa halka fadhi gudoomiyaha jaal aan maareen Faadin Maxamed Cilmi maama Maryan qaran guuleysaan ku leeyahay Allah sacbi maama qaran thank you agaasima thank you وما سنتين مدن يالي مروين دجالك إن كستو دجالك جول كستو حنجرة يلورا بيا حنجرة دجالك يلورا بيا وحكم إذا جيسي حرية تدباتن إلى ما جا ديجان أو كتر سنقل مدوق يهرش بالله الله نحرسته مدن حسن تورة هذا حسن محوها ننعين كي أيوها هل كل شيء حقيقة حكوا برتاي وقت يسحق يسوء هري وحا الناس وجدين دونا مدن داهر حسن عوالي أولاً وحسلام يا دمانك سوق بقلياشة مدحضة دنيرضة إيو متشرف كلا يدمرك يسودك لو حاسي قاسة وسلام يا قبلها نص قبل قابيي حفلة ده شرفت له ولا لي على الصوت شيء يركا محمد dagaalkan socdo waxa ku shahiiday walaalo badan oo qaali ah nabadoono taliyaal iyo ciidamo iyo dhamaan iyo macawisley oo ugu horeeyay nabadoon cilmi hagar Allah u naxariisto sabr iimaan Allah naga siiyo iyo sidoo kale taliyaashii ay keenay ku shahiiday waxaan leenahay sabr iimaan Allah naga siiyo sidoo kale taariikhda لما سو كوبي كرولالكين حسن محمد عثمان حسن توري لكن هديان سوكو بحسن الله قلنا حديثته إكس قاشان لحسن توري وحول الشيء كون سجال بقول سجاشني سدحدي وحكون الشيء قبل كهيران وحب الشدي سي هوسة دحين وحكون سوقات قبل كهيران كبعدي وحوسو رجعي مقالة مدحضة مقدشو وكون ما يستوي وحب الشدي السريع الله قلنا حديثته قاشان لتوري وحو كبيري حل إيه أتكاد إن لقوا بير عيد ماذا دولة ده محايا لي قف كي عيد ماذا دولة كتاجر أو لقوا بير وحوها قف تارجة ده وحو كبير عيد ماذا لبدي يكون يستقالكي وحوها نين ديرن جيسي سيدو كلنا ودني عنك قرط من صومال لماذا الله قلنا حديثته حسن ما هي نين قبيل وحوها نين قرن حق فرنان تيسا جيسي نمديسا إيو هل أذيجيسا لقوا يقينا أيا وحا أبو حسن كم تيستين الله ديرو تببرو ودم بدن أو كلا دوان الله قلنا حديثه حسن
wuxuu ahaa taliyii ku-xigeenkii danab waxa uu ahaa haliyaay maral arag ah oo qaranka Soomaaliyeed dhigiisa u horay gacmihiisa ayuu ku cadaabi jiray cadowga waxauna sidoo kale qawaarista ku galbaashi jiray gacmihiisa ex gaashaanle Allah u naxariistee wuxuu ka soo dagaalamay galgaduud ilaa shabeellooyinka sidoo kale wuxuu shahiidka xoreeyay ilaa 72 degmood oo ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug intaas ayaan ku soo gabayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xasan wuxuu dhashay sida muuqata 1993 qof dhashay 93 oo qaranka intaas u qabtay waxa laga yaabaa dad badan inay u qaban Allah u naxariisto xasan wuxuu ka tagay magac sumcad ma dhiman xasan laakiin waa dhuntay waa maasantiin waxaan iminka mikrofoonka ku soo dhaweynayaa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan mudane Cabdi Faarax Laqanyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waa habeen aad iyo aad qiimo weyn u leh ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxaan aad iyo aad runtii u bogaadinaynaa haweenkii iyo dhalinyaradii soo abaabulay in maanta ama caawa halkan la isugu yimaado si loo xuso ama loo qiimeeyo halganka ka socda dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobolka Hiiraan iyadoo barnaamijku caawi yahay in loo duceeyo tacsi ahaana loo diro dadkii ku shahiiday magacii masabka ku lahaa ummadda Soomaaliyeed isla markaana loo sameeyo dhaqaale ururin halganka socda macawisleyda gobolka Hiiraan oo la og yahay halganka ay ku jiraan iyo dagaalka meesha uga jiraan dhammaan waad mahadsantihiin walaalaha soo qaban qaabiyay arrintaas runtii halganku ma dhammaan weli wuu socdaa nimanka nabadiidka waa sida shimbirahoo kale marka meel lagu yimaado way ka yaacaan waxaana loo baahan yahay shimbir dadka beeraleyda ayaa yaqaana shimbiri markas waxay u baahan tahay in la hubiyo in ay beerta ka fogaatay ama aanay ku soo noqon run ahaantiina ummadda Soomaaliyeed way ku baraarugtay iyadoo la raacayo taladii uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayd in shabaab aan lagu arag dalka Soomaaliya arrintaasna waa arrin aad iyo aad muhiim ah ummadda Soomaaliyeed u taala kulli waxaan soo jeedi lahaa ka way aragnimo ahaan dadka walaalaha ee xukuma maamul goboleedyada dalka in ay waqtiga hadda la joogo ay iska daayaan in la farageliyo arrimo siyaasadeed sida magacaabid degmooyin iyo tuulooyin iyo xilal la kala qaado waayo arrintaas waxay dhaawacaysaa halganka lagula jiro nimankan qawaarjiintaasi meesha looga saaro sidaas darteed waxaan u jeedin lahayn in arrintaasi dib loo dhigo oo xoogga la isugu geeyo qof kastoo Soomaali inuu mas'uuliyad wadareed uu qaato si nimanka dalka looga sifeeyo way ku maasan yihiin dadka halganka adag wada sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan Ali Jeyte oo halka ka soo bilaabay adogeydeen maanta runtii meel fiican marinaya sidoo kale waxaan leenahay runtii aan halkan uga soo jeedinaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka wada qayb gasho in nimankaas dalka laga saaro si loo helo Soomaaliya nabada gabdhaha iyo wiilasha halkan ku jactadayna ay dalkii dib ugu noqdaan aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay mudane Laqanyo waxaan iminka qadka telefoonka ku jira gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Ali Jeyte mudane Ali Jeyte ku soo dhawow madashan qiimaha badan hello waa ku jirtaa mudane ku soo dhawow madasha qiimaha badan السلام عليكم وعليكم السلام لما وانا هذا كراسوما لكرتا waa hadli kartaa لما dadka Soomaaliyeed oo meesha isugu yimid waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
salaan kadib waxaan ka mahad celinayaa in adinka dad intaa leeg oo nooc kasta leh oo waxgarad kasta leh inta meesha isugu yimid in laygu casuumana waa ka mahad celinayaa. taa haddaa intaa uga gudbo dabcan dadkii hadda soo wargeliyey waxay ii sheegeen in warbixinta soomaaliya iyo broblemka dagaaloo ka jira warbixin inaan yani dadka shirka jooga ka siiyo. saas inay tahay aan filayaa ujeedka la iigu casuumay munaasabadan mase waxba ka bedelan. aad iyo aad umahadsan tihiin. mar labaadna waa idinka mahad celinayaa waana idin salaama. haddaan si kooban u sheego broblemka soomaaliya muddo 20 sano ku dhow ayaa nimankan cadowga oo shayaadiinta oo waxay dhaafayaan aysan jirin oo cid yani wax ama ahlu cilmi ah ama ahlu diin waxay doonaan ha noqdaane qof macno ugu fadhiya dadka soomaaliyeed oo wax uun garanaya inuu noolaado qorshahooda ka mid maaha. inta aan wax garanoo masaakiintana waxay ugu talagaleen inay ka leexiyaan dhaqanka suuban diinta islaamka manaahiij noocay rabta ha ahaatee ama diinta islaamka ha noqoto ama culumta maadigaa ha noqotee wax aan la aqoonin dadkii bareen libis aan la aqoonay bareen sharafkii iyo soomaalinimadii iyo dadnimadii waa ka dileen. yacni bil sakaahaanu arki jirnay oo 12 bilood ku jirtee bil kastana wax sakawaad la yidhaha dadka ka qaadaya. kuwii noolaana saasay ula dhaqmayeen kuwa kalena waa dilayeen. markaan aragnay duruufaha noocaa u yaalla muddana soo jiray haddana uusan xal muuqan ilaahay baanu tala saaranay. dagaalaanu ku qaadnay. dagaalkiisi wejiye kala duwan ayuu u dhacay laakiin ujeedka ugu weyn ee aan ka fikirna wuxuu ahaa in si kale aan nimankan lagu saari karin taangiyaal iyo amisom iyo ciidan keligiisa iyo inaan lagu bixi karine kacdoon shacab oo hubaysan in lagu kiciyo. qaacidada anaga qaadana taasay ahayd. ciidamada soomaaliya iyo cid kastoo heli karaana inayna caawiso ayagana waana caawiyeen doorkooday ka qaateen. kabacdina dagaalkii hadda dadka soomaaliyeed kuwo u tafaxaytay oo hadda dagaalka ku jira iyo kuwo u diyaargaroobaya iyo awal muraalkoodu yani rajaba aan ma qabine hadda rajo qaba oo markaa laga hadlayo awal waxaa la dhihi jiray maxaa la yidhaha qoladan ciyaarta banooniga manchester iyo heblaaye iyo ayaa loogu magac dari jiray. qof jooga lama xanto waxaasaa la dhihi jiray. hadda waa lagu dhiiraday waa la wada hadlayaa. culamadii soomaaliyeed dal iyo dibad isaga timid waa kuwa halkan ka soo saaray go'aanada. dadka shacabka muraalkoodii wuu soo noqday guud ahaan haddii aan soo koobo. anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadana waxaan idinka codsanayaa inaad dadka soomaaliyeed oo qurba joogta meel kasta ha joogeen saamaynay ku leeyihiin dadka gudaha. guduhu qurbaha saamayn badan kuma leh laakiin qurbuhu gudaha saamayn badan oo ku leeyahay. idinkuna waa ila garanaysaan sababtu tahay qofka idinku yar ayaa hal qoys oo soomaaliya jooga noloshiisa iyo broblemkiisa xalliya. waana meeshaad ka tagteen oo bayskiinu ahaa. aan idinka codsanayaa waxaa dhintay soomaalinimadii waxaa dhintay diintii islaamka meesha laga sii saaro waaya. waxyaabaha haddaad hoos ugu dhaba gasho damiirkii soomaalinimadaa meesha ka baxay. waxaan idinka codsanayaa in dibaddana aad abaabushaan dalkana aad abaabushaan si soomaalinimaana loo fekero.
si soomaalinimaa nimankaas in looga hor yimaado si soomaalinimaa in maxaan ku raadayey aad u garab istaagtaan adinkuna u abaabushaan sidii nimankan dalka looga saari lahay xasilooni iyo kala dambaynna loo heli lahaa walaalayayow codsigayguna intaasna waa idinka codsanayaa marxaladda guud ahaan haddaan dib wax yar u laabtana dhaliila way jiraan siyaabo kala duwan oo in wax u dhacaan la rabay oo inuu dhaceen waa jiraan laakiin waxaan dhihi karnaa dhulka la xoreeyana waa dhul weyn waxaase xoreynta ka muhiimsan sida dadka soomaaliyeed oo dalka joogaa ugu dhiiradeen nimankii taasaa muhiimadda ugu weynu tahay waxaan codsanaynaa in ilaahayna loo noqdo danuubtii soomaaliya gashay oo iyadu dhexdeeda kala gashay ayaana saamaysay ilaahay in la isna cafiyo dadka soomaaliyeed meeshay doonaan ha joogaana si soomaalinimaa in loo fekero si soomaalinimaa inaad u istaagtaan intaasna waa idinka codsanayaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin haddii su'aal mid iyo laba lay weydiinayana diyaarana wadan aan ku xusuusanayno tacsina ugu dirayna dhammaan mujaahidiintii ku shahiiday dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale taageeridda geesiyada macawisley ee gobolka hiiraan waxaan iminka mikrofoonka kusoo dhaweynayaa mudane yaasin bulsho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي برضو حنقوم هاد علنا يا إلهي وين سبحانه وتعالى أود ويا شيء إن نسكن ماضو أنه كفكر إنه دتك ولا هايو كودي بحي قبل كثيرا قاسة المجاهدين تانو نكان حسن وجوه ريال كايرو قال شاء الله حسن وجوه ريال ونن يراءه ومركم مفتين كيس افتيمة ما أنت نفتك بحدي معنا ودريم يسوى وقتي وقال الله هاي الدنيا كوت كذا كورة حنصل لها سوى مركز إنه رمى دلكيسة إن دلكيس إنه حرية مركب فائدة وين أنت صور كا مركب إلهي مهدس وحاء أنا هرت مقعي كوهد لايو أو مقعي كوهد لايو كنا هذا مقع أودياش قالها قرتي قالها دقن كا هي مقع علماء الدين كا صوماليا ده UK يا دمان أنت ما ارتموا حجرتوا أقوياً درين صومالي كوجرتو وحن لنا هدتك برنامج كان سوء أبولي oo gabdhaha iyo ragaba leh oo gabdhahan ugu horeeyaan aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa loo baahan yahay in lagu daydo hal far mar dhaqdo hal far foor ma dhaqayso wajiga ma kala dhaqayso sida darteed waxa muhiim ah in la iskaashado oo qolooyinka kale to eheliyada kale oo meelaha dagaalada ka socdaan inay u kaalmeeyaan dadka waxay u baahan yihiin ceelashii laga duugay ceelashii biyo u baahan yihiin Soomaalidu waa u jeedaan maalin walba waxa ummadana dilay waxa kamid ah ceel biyo laga cabi karo oo Soomaalida hal qoys oo wada dhashay ay isku dilayaan ay ku xali karaan 2 kun 3 kun lagu xali karo waxa fiican inaan ka sii tashanno intaan dhibka imaan maxay qurbaan joognaa waxa dareemaysiin maanta inteena meesha fadhido ama cimaara degan tihiin ama guryaha hawsina degan tihiin dad dariso aan ehelkaaga ahayna kula degan oo isla markaasna aad wax dhibaato ah u qabin hal albaab ka wada galisaan marka adigoo dadkaadi aad wada dhashateen oo walaalaha atiin oo xoolo isla daaqayaan oo beeri la isla daaqayo marka insha Allah waxaan rajeynayaa dadka barnaamijkan soo abaabulay inay ka sii ambaqaadaan si loo baahi tiri lahaa dadka dhibaatada gaartay ama agoomada dhalinyarada shahiiday oo xasan ugu horeeyay kuwii ka horeeyaba iyo kuwa hadda wali dagaal ku jiro meesha taagan si loo kaalmeyn lahaa taas hadaan la helin oo ay naqatay uu yahay iyay tahay hadda waxaan arkay hadda dumarka alxamdulillah rabbil caalamiin gabdhaha aad u buuxaan maantana barnaamijku wuxuu taagan yahay hiiraan uu taagan yahay hiiraan iska dhaafay South Hall inta degan kaliya hoolkan deetimaad meel la istaaga ma laha waa dadka hiiraan ka soo jeedaan ka hadlaa South Hall kaliya ama the green area-diisa kaliya adoo meel kasta aadinba oo reer hiiraan hadii halka caawa soo galaan albaabada meel isku dil la saf loo gali lahaa macnaha halka waxa ay muuqato wali in aan dareenkeena iyo dhiigga Soomaalinimo ma kicin wali marka Soomaalinimada soo idin sheegay walaalkay gudoomiyaha gobolka oo mujaahid naftiisa wali ah oo soo tootiisa gashan dhax ordaayo oo ku dhax dhimanayo oo dhax ordaayo oo dhaawac qaadayo oo asagana ku dhiiranayay hadalka ula waa maqlaysa Soomaalinimada wax ka dhow oo ka fiican ma laha hiiraana dadka degan intaan ma aha
ilaahay waxaan idinka baryaa inaad fahantaan waxay u baahan yihiin asiisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa intii dhimatay jannada firdaws inuu alla ka waraabiyo ummadda soomaaliyeedna waa isfahmaya biidnillahi alkariim danahoodana waa garan doonaan waa xarig noola dhiibay xariggaas sidii la isugu xiri lahaa oo looga durki lahaa allah na qarsi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay mudana yeeshin bulsho duni jiray kuwii halkiyaynu nahay hadal male hadow male nafta huraahu kala dira wixii garow ka kaca hadal male hadow male nafta huraahu kala dira wixii garow ka kaca halganka ka bilowda hiiraan dadkii hagayaynu nahayo hormuud baan kulu nahay aw sacabka halganka ka bilowda hiiraan dadkii hagayaynu nahayo hormuud baan kulu nahay hayaankuna weli ma degin horseedkuna sooma noqon annagu hootada ma dhigin annagu hootada ma dhigin hayaankuna weli ma degin ambasadorka wuxuu yidhi ka ciyaan aad baa mahadsantihiin runtii hees muhiim ay ahayd oo ka hadlaysay qadiyadda imika taagan waana ku mahadsantihiin dhammaantiinna waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marweyn waqtigiina qaaliga iyo dulqaadkiina khudbadaha ayaan sii wadi doonaa waxaan ka codsanaynaa khudbadaha dadka haray inay noo soo koobaan oo si aan waqtiga u banqaamino waxaan imika kusoo dhaweynayaa mikrofoonka nabadoon maxamed keedsane بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan leeyahay soo dhawaad safiirka UK u fadhiyo Axmed Khayr gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Banaadir qusulkii Kuwait ee hore iyo dhammaan qabaqaabiyaasha gabdhaha iyo wiilasha soo qabaqaabiya xafladda qiimaha leh waa mahadsantiin runtii caawa waxaa halkan la iskugu yimid in mataqaanaa loo duceeyo fariisina loo sameeyo mataqaanaa dadkii ku dhintay halgankii ka bilowday Hiiraan ku fidayna mataqaanaa labada gobol ee mataqaanaa Hirshabeelle iyo Galmudug runtii waxaan leenahay Allah u naxariisto intii ku dhimatay ku shahiiday dhammaan waxaan leenahay Allah u naxariisto intii dhaawacana Allah caafiyo gaar ahaan waxaan leenahay halgamaaga weyn Xasan Maxamed Cusmaan Xasan Tuur waxaan leenahay jannadii firdaws Allah ka waraabiyo iyo intii la dhimato kale mataqaanaa saraakiil ahayd runtii waxaan aad iyo aad ugu cudurdaaranaynaa caawa oo ah habeen isniin ah oo berito ilmihii iskuulka la geynayo shaqo la aadayo waxa hadda meesha aragtay mataqaanaa meel fog la keenay waa ka cudurdaareen laakiin gabdhaha iyo wiilashii sameeyey way dadaaleen waa mahadsantihiin midda kale waxaan runtii u mahadnaqaynaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo halkan dagaalka hadduuna asiga ahayn aynan hirgasheen iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo ah mujaahidka ugu weyn iyo dhammaan inta ka qayb gashay ha noqoto maamul goboleedyo ha noqoto saraakiil ha noqoto xildhibaano ha noqoto wax intii ka qayb gashay rag iyo dumarba aad baa u mahadsantiin baan leenahay midda kale dagaalkii weli waa socdaa
ma istaagin ma dhammaan gobolka xoolaha galmudug waxaa nooga hartay insha allah oo saa dambe ama beri dambe la qabanayo waa ceelbuur iyo galhareeri waana soo gabagaboweysaa insha allah marka insha allah dagaalkii ka bilowday matabaan ee tegey balcad soo laabtay ee tegey xarro dheere waxaa haray waa iska yarta sooma waa in la aado un bakool iyo xoahay kismaayo balkii xoahay bu-aale dhammaan la aado halganka waa dhammaan rabaa insha allah waa la israacinayaa xoaha canaasiirta xuxunka waddanka gumaysatay marka insha allah waxaan leenahay waa mahadsantihiin gabdhihii noo soo qabiqaabiyey wiilashii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay aad buu mahadsan yahay nabadoonka waxaan iminka mikrofoon kusoo dhaweynayaa guddoomiyihii hore ee gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadalle ibraahim dheere السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور وحان سلامي ضدك كسو قيب كل حفلة دان لما توت سيجارة وحاو سلامي يا سفير كنا أحمد غير وحان سلامي يا قدومي هوري قبل كبنادر اللي غيو قصيركي هوري الكويت عبد عمر بلسو نبضونا ذا يو ماما مرجعنا وسلامي runtii farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xaflad iyo soo abaabulin dadka reer hiiraan oo anigu aan ka mid ahay waa gobol aan ku faano aan ka soo jeedo aan ku dhashay badaweyne ku soo hana qaaday ilaa ya high school aan uga soo baxay marka runtii haddii ayna qabiil jiri lahayn aniga qabiilkii waxuu noqon lahaa gobolka hiiraan هذا اللي هلا ما كم جرو وحنا كلو سلامية إمبوبة عيارتوجي هراء قبل كيران أدبا سلامية أنت كدب رتي هلا يدين نجب حي وودن بيجي حسن محمد عثمان حسن طور ورتي هانين داير يو نبضون كين علمي حجر يو ركلوا قيمة بدن وحليها إلهي جنة حكورابيو aniga dhulkaas ee la qabtay waxaan moogahay muddo ka yar bil bar maxaasan tagay waxaan tagay wabxo waxaan tagay tardo runtii anigu nafteeda mujaahid kale aan ahayo maarta cala jeetay meel lagu mahran marka xaaladda shabaabka haddii aan kaga warramo runtii shabaab kii hore aan dhaqeynay iyo midka jooga maanta horta laba kala yihiin hadda shabaab een cararaya oo markaa aragtaba furti ku dhahaya ayaa horta joogo halkan kaasna waxaa soo bilaabay wuxuu ka bilowday ubicda gobolka hiiraan ayaa iskale hogaamiye cali jeeta iskale halkan ka socda waxaa la rabaa mugtay libinta in la qiro oo qofka wuxuu amba dadka amba community haday isku tageen ee go'aansadeen war heeriyada gumeysiga aan iska qaadno waxay mudan in lagu ammaano oo lagu macna garab istaago hiiraan runtii waxay ku suntan yihiin taariikh weyn ilaa ay xilligii gumeysiga waa dad ee gumeysi diid ah mahmaha waxay leedahay halyay aan ku dhalan hiiraan halyay Soomaaliyeed aan hiiraan ka imaanay halyay ma waa macnaynaya marka madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya aadan cabdulla cusmaan iyo madaxweynaha hadda haya talada xasan sheekh maxamuud waxay ka yimideen gobolka hiiraan marka runtii talaabadan aqaadeen waa talaabo runtii lagu naalooday waa talaabo dad badan ay kiciyeen oo macnaha reer galmudug amba reer hirshabeelle amba Soomaalida kale maanta dagaalkii laga bilaabay matabaan wuxuu marayaa ilaa ay maartay qalcad iyo ceeldheer hadda waxa haray oo runtii loo baahay inuu madaxweynaha aan ka sugayno inuu ku dhawaaqo ceelbuur iyo galhareeri ayaa hadda dhiman taa markii macnaheedu waxa weeyaan
in galmudug iyo hirshabelle shabaab laga xoreeyay haddii la xoreeyo runtii waxaa kaloo loo baahan yahay in la haayo magaaladii in la xoreeyo hadda fidhi waxaa dhacday magaala la weerarayaa shabaabkii wuu ka baxayaa marka wuxuu tegayaa 2 kilomitir hubkii lagama qaadin ciidan ahaan looma dilin marka waxaa loo baahan yahay in la burburiyo cadowga markaas waxaa la dhihi karaa magaalada waa xor waxaan rajaynaynaa dadka ayagu isku xilqaamay ee runtii mujaahidiinta ah ee runtii diiday gumeysi ee gobonnimo ka doortay oo dhiigga u daadiyey waxaa la yidhi gobonnimo aan dhiig ku daadinay lama helo waa ka xunnahay inay naga dhintaan halyeeyo iyo wiil maanta 29 jir ah adduunyada u cusub laakiin wuxuu horseeday in adinka aad ku noolaataan gobonnimo lama celi karin raggii inta dhimatay lama celi karin waan jecelnahay waxaan jeclahay macnaha inay noo joogaan laakiin waqtigooda dhammaaday laakiin waxay ku baxeen meel fiican jannayna ku jiraan waxay la dagaalamayeen qawaarij diinta iyo dalka qabsaday beenna ka sheegay markii aad tagtid dhulkaas oo ka socdo halganka waxaa arkaysaa gabdho iskuul ka baxay dhalinyaro jaamacad ka baxeen haddana qori qaatay aniga arkaysa tuuta xirtay weligeed ma qaada moogta macnaha waxaa u xirtay dadka inaan tusiyo war in waxaan heryadan gumeysiga nin sarwaal soo gaabsaday ee diin annaga waa naqaana waxaana islaam baanu nahay waa ku dhalanay abka ab muslim baan nahay diinteena barayaan shabaab maxay tahay dadkii ay u tageen waxay dhaheen beer ma abuuri kartiin annaga bas xoolihiina annagaa leh gabdhihiina bal gabar nin soo korsaday intii loo yimaado ayaa waxaa la leeyahay gabadhaada mujaahid hebel oo macnaha maxaa la yidhahdaa nin oo soo tahriibay oo amba afghanistan amba sibaar ah sunbuuna waxay ku leeyihin gabadhi alla soo hadda aan soomaali ahayn war hadduu war aniga ninkaan ma aqaan dhaqankiisa ma aqaan gabadheeda ma siinayo waxaa la leeyahay bas waay marka waa ninkaan waa diintu ka baxay gabadhii waa xalaal waay kaxsan la leeyahay marka runtii gobonnimada waa dhowdahay waxaan rajaynaynaa insha allahu bisha February iyo March wixii ka dambeeya in shabaab laga waayo carigaas ay hiiraan iyo hirshabelle aamin hirshabelle iyo igar la ahaado waxaa qeyr mugta hiiraan iyo galgud waxa ma qaani warqada dhib ugu weyn laakiin hiiraan hirshabelle iyo galmudug waa ka dhamaanayaan marka inaad tabuuracdaan oo lacag bixisaan oo walaalihiin aad galb istaagtaan waxba shaki ha gelinina runtii wallahi maanta cali jeeto wuxuu sheegayay oo isbahaysiga hadda marka aan nimid anaga maxas aan joogay war waxaa la yidhi war nimanka shabaabka ah waa niman wato macnaha cid kasta oo Soomaali ah ayaa waxay ku ballameen intay marhabaabiyeen annagoo shabaaba dadka aan dhacno annagoo marka Soomaali ah waxaan ku ballanay inaan iska celino hadda ciidamadii ee tagay aadan yabaal iyo kuwii ka dagaalamay wabxo iyo kuwii ka dagaalamay tardo dad isku tagay oo qabiilaas ah ay ahaayeen waana bilo fiican waayeen in macna isbeesar dhaco nimankaas macna la iska celiyo runtii guusha waa dhowdahay waxaan kaloo aan jeclaa waxaan rabaa inaan meeshaan aan amaan aan ugu jeediyo madaxweynaheena xasan sheekh maxamuud oo yiri shabaab oo in dalka laga saaraa nin kasta oo raba inuu shabaab la dagaalamo amba cali jeeta amba cid kale haddii aan lagu taageerin haddii aan amar ee sakiiman dowladda ee sare lama dagaalami karo marka madaxweyne xasan sheekh waa ku amaanan yahay amarkiisa fulinay shacabkii waa heelan yihiin waxay u baahan yihiin garab istaag iyo wixii dhaqaalaha aad awoodaan inaad ku tabarucdaan maanta wiilba wuxuu u dhimanayaa macnaa dhiigbax gabar baa dhimanayso wiil yar baa intuu dhinto ayaa xaaskiisa ayaa asay qaadaysaa intaasoo dhibaato ah runtii annaga waxaan nagu waajib ah inaan ku garab istaagno dhaqaalo inaan ku garab istaagno support aan caawino aan idhaahdo waxaad ku dagaalamaysiin wax saxa waaye sharci waaye diinta baneysay hor u socda dalka noo xoreeya 12 sano ka hor jidka ka yimaada xamar ee taga matabaan u xirnaa degmada Jalalaqsi iyo Buulaburti way kala xirnaayeen Buulaburti iyo Balweynena way kala xirnaayeen laakiin maanta aniga intaan gaari ka raacay habeen cisha markaan soo aan dukaday xaafadda Irdaamin waxa ku tagay maxaas والله
waxaan lahaa markii laamiga laga leexdo nimankiiaba joogaba dhab inay qabtaan ee madax ka jiri doonaaba cabsida igu jirtay laakiin markii aan jidka aan ka soo leexday oo howd cilla ah iyo habeen gudcura iyo annaga aan is galnay waxaa reeb baashan kulli hadda meel laga noqdo in lama joogay hore u socdo 4 saac kadib waxaa tiin maxaa tagna marka hadalka waa ku badiyay guushu waa dhowdahay guushana mar walba shacabka keena garab istaaga ciidamadeena macawsleyda iyo ragga dagaalamaya ee mujaahidiinta ee Soomaaliyeed ee raba intaad fasax aadaan aad diyaaradaha aad ugu degtaan ee Moqokori iyo Ceelbuur iyo mashlaado Xaradheere way soo dhowdahay guusha waan in salaamaya runtii soo dhawaada aad buu mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka Banaadir Mudane Ibrahim Dheere iminkana waxaan mikrofoon ku soo dhawanayaa gudoomiyaha Child and Mother Care Marwo Faadumo Maxamed Cilmi haweenka quruxda badan ragga kidigii waxaan idin leeyahay culimo awdiinka odayaasha saacatal safiir ee madaxdeena halkaan wada fadhiso gudoomiyihii hore ee magaalada Beledweyne waxaan leeyahay dhammaantiin salaam calaykum salaamta islaamka idinku salaamay aniga wax kale uma soo istaagin waxaan u soo istaagay gabdhihii sharafta badnaa ee qiimaha lahaa ee xanuunsaday saraakiisha la dilaayo iyo wiilashii yaryara oo macawisleyda ahaa oo dhamaaday ka xanuunsaday sameeyay fundraising ka saan u weyn oo ku kaalmeynaya caruurta agoonta ah iyo dadkii dhintay iyo dadka wali halganka ku jira oo dhiig joojintan soo diyaariyay waxaan leeyahay gidigin waa mahadsantihiin maskax caafimaad qabta ayay ka soo maaxatay gabdhaha aad iyo aad aan u raacsanahay waana u jeedin dhintaa walaalkeed dhintaa aabaheed dhintaa geeridu waxay kor saaran tahay habeen iyo maalin hooyada asayga sita iyo hooyada dhibaataysan oo dhibaatada ay qawaariijtu u geyseen wiligeed aan ka soo waaqsanaynin soo haddaanahay haweenkii Soomaaliyeed waa inaan la tartanno haweenka adduunka waa inaan dhiig joojin habeen iyo maalin u diyaarsanaano waxaan u tacsiyeynaynaa ninkii geesiga ahaa ee taliye ku-xigeenka ahaa tuure waxaan leenahay walaalkay ilaahay jisadiisa jannaha ka dhigo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagayna iimaan iyo samir iyo iimaan saadaqa inuu ilaahay siiyo iyo gidigeed intii ka horeysay iyo intii ka dambeysay oo dhimatay inta dagaalada ku jirto inta dhaawacan allaha caafiyo gidigeen haweenka Soomaaliyeed waa laf dhabar wiilasha xoogaa waa dhaliilaya maxaa yeelay meeshii boosaskii aan u diyaarinay caawa soomay buuxinin laakiin waa u filayaa marka dambe inay dadaali doonaan hooyo haddaan nahay hooyo ayaan habeen kastaba maxay ahayd aan hooyanin oon hurdin firinjeerada noo buuxo waa inaan damino waa inaan caruurta cuntada sidii aan ugu diyaari jirnay iyo miisaskan sharixi jirnay aan yareyno fundraising kan la mid ah iyo kuwa kale oo ka badan waa inaan u diyaar garowno haddaan nahay hooyada Soomaaliyeed because waana taabatay dilka iyo dhaca iyo boobka qawaariijta iyo saqiirada la gubaayo iyo hooyooyinka asayda loo saarayo hiiraan waa meeshii ugu horeysay oo kacaankan uu ka bilowday waxaan leenahay gobolada Soomaaliyeed raas caseer ilaa raas Kamboni waxaan jecelnahay inaan qawaariij iska sifeeyno aan ku sifeeyno fundraisanada iyo waxa iyo dahabyadeena oo aan furno maantay waxa loo baahan yahay inaan la kala harin waa salaamaya waxaan leeyahay madaxweynahayga sharafta badan leh Xasan Sheekh Maxamuud eraygii uu yiri oo ahaa aan iska saarno waa iska saari karnaaye waa inay gabar walba ku fikirtaa wiilashuduna sidooda waa inay ku fikiraan gidigin waa idin salaamaya waxa kale oo mahadaan u soo jeedinayaa maamooyinka sharafta leh gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed Qaali Beerlula oo juhdi xoog la gelisay oo anagoo dhan soo wacday oo na tiri ka soo qayb gala mana maqnaan kartiin oo amarna dul dhigtay maama jaceyl hooyooyinka sharafta leh Nasra Qafaal gabdhaha activistaha dhamaantood waxaan leeyahay waa inaad mar walba saan noogu diyaarisaa wassalaamu calaykum oo min hal daqiiqo inagu soo ekeeyaan waxaan imika ku soo dhaweynayaa mikrofoonka gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK injineer Xuseen Maxamed Xasan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفيرك UK سفير كحجينك عبد العمر كويت iyo odayaasha dhaqanka gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan gudoomiye ku-xigeenkii hore vice governo aan yidhaahdo gobolka Banaadir iyo madaxda jahliyadda UK waxa sharaf iyo bogaadin bay ii tahay inaan caawa halkan idinkala soo qayb galo anigoo ku hadlaya magaca jahliyadda waxaan kal iyo laab caawa halkan aan u barbar istaagaynaa walaalahayga macawisleyda ee guulaha wax ku oolka ah soo hooyay taasi oo ay taariikhda baaldahaba ka geli doonaan qof kastoo Soomaaliyana uu xusuusnaan doono oo aan marna la ilaabi doonin waxaan si gaar ah iyagana aan u xusayaa geesiyaashii uu ka mid yahay walaalkeen gaashaanle dhexe oo isna ku geeriyooday dagaaladii hadda socday waxa kale oo isagana aan marna aan ilaabi karin la'aantiina aanay macawisley aanay hirgeli lahayn nabadoonkii isaguna loogu magac daray nabadoonkii halganka ee gobolka Hiiraan waxaan kaloo isagana halkan ka hambalyeynaya walaalkeen Cali Jiidaan oo isaguna yahay halgamaaga dhabta ah oo maanta dagaalka hogaaminaya halkana codkiisa aad ka maqliseen dhammaantiinba waxaan leeyahay walaalayaal garabkiinaan taaganahay sharaf iyo bogaadina way noo tahay waxa inta aan ka sokay aan jeclahay in aan adaba dhowr arrimood halkan ka idhaahdo oo laba ah marka ugu horeysa haddaan nahay qurbo joogtii UK waxaan idin xusuusinayaa codsigan macawisleyda iyo dawladda federaalku qaaday in uu ka yimid jahliyadda UK maalintii ugu horeysay madaxweynaha la magacaabay anagu xilmaanaan weydiisan waxaan weydiisanay kaliya in dadkaasi khawaarij in la baabiyo tiina wuu noo ballan qaaday waana u fuliyay waana ku barbar istaaganahay midda labaad waxaan jecelnahay maanta inaan jahliyadda mar labaad aan xusuusiyo oo aan ka codsado maadaama macawisleydii ay xoreysay gobolladii dalka intiisii badnayd waxaan ka codsanay in macawisleyda la shaqaaleeyo oo laga dhigo ciidan si xuquuqda militariga ay u helaan registration loo sameeyo waxaan kale oo aan codsanayaa dadka aqoon-yahanka ah in loo qaado ambiil oo la ambiil gareeyo in dib u habeen lagu sameeyo meelihii laga qabsaday al-shabaab taasi oo dadkii ay u cadiban yihiin cusbitaalo ma laha iskuulle ma laha arrimihii daryeelka dadweynaha oo dhan ma laha dhaqaalo fadanna looma hayo marka waa inaan ambiil international communitieska aanu qaadnaa haddaynu nahay jahliyadii oo aanu barbar istaagnaa oo dadkaasi noloshii caadiga ahayd lagu soo celiya walaalayaal saaxiibayaal waqtiga oo igu yar awgeed oo dad badan ay iga dambeeyaan waxaan jecelahay in aan halganka wadi doono ilaa ka ugu dambeeya al-shabaab la waayayo waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa walaalahaygii qaaliga ahaa ee soo qabanqaabiya xafladan qiimaha iyo qaayaha leh oo baaldahaba ka gelaysa taariikhda oo ugu horeyso qaali beerlula iyo groupkii ay soo diyaarisay la qabanqaabiyey dhammaantiinba waxaan leeyahay walaal waad ku mahadsantihiin waxaan kaloo idin xusuusinayaa qaali beerlula kaliya intan kuma eeka ee haddana barta hogaaminta ciidanka ayaa habeen iyo maalin ka shaqaysa marka taasna ogaada dhammaantiin waad salaamantihiin noolaada walaalayaal علي جدال كوكو سلامين علي جدال وما سنتهاي هذا ما سنتهاي طبعا waxaan ka cusreynaa dadka noo dhiman khudbadaha inay soo koobaan hadii kale mikrofoonka qabsanaya marka dambe wama santiin waxaan mikrofoonka imika ku soo dhaweynayaa mudane Cabdullaahi Dacal Xirsi oo ku hadli doona gudoomiyaha reer Hiiraan ee gobolka gudoomiyaha reer Hiiraan jaalid dhalinyarada Hiiraan ee magaalada ay dalka UK Cabdullaahi intaan balweyne joogaan qof madow ma arkin Cabdullaahi bas aan ka arkay wama santiin
laakiin laabtaan ka caddaa ogaaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرت شرفتا مدحدا شرفتا لي انت كسو قيب كشي نين والبا منصبك وليها ayaan ku salaamaya horta hadii uu jiro qof shabaab nacab hadii uu jiro number 1 waa aniga qof iga nacab inuu isan halkan joogin aan aaminsanahay waxaan isleeyahay dhowr iyo 10 sano ka hor aabahay gacantii al-shabaab uu ku baxay markaan maqlo meel al-shabaab looga soo horjeedo number 1 qofka taaganaan ahay horta waxaan aad ugu mahad celinayaa gabdhaha sharafta leh ee soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha badan leh isku duub ma kala saaraya magacooda laakiin isku duub aad u mahadsantihiin la'aantiina wax ma qaban karnaba inta kadib anoo ku hadlaa magaca dhalinyarada jaaliyada UK waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo macawisley meel walbo ay joogto walaalayaal waxaan naloo ka baahan yahay waa dadkaas inaan la garab istaagno hiil iyo hoo berrito qof walba oo halkan ka baxa waxa uu rabaa meel uu ku harsado meel uu ku hoydo laakiin taa waxaa ka horeyso in adoo halkan joogo aad xoreynta ka qayb qaadato qof walba waxaa looga baahan yahay ha noqoto hooyo ha noqoto gabar ha noqoto wiil ha noqdo aabbo in uu jaabka gacanta geliyo wax walba uu awoodo dadkaas uu la garab istaago waxaan dhaliil yar u soo jeedinayaa dhinaca ragga oo maanta aad tiradooda ay u yar tahay sabab ay u maqnaadeen aanay sheegi karin kulanka ku xiganayaana nala ka waynin goobta aan soo buuxino adinkana taas aad leeyahay waxaan ilaahay oo aan u tacsiyeynaa dhammaan intii ku dhimatay dagaaladaas al-shabaab ay wadanka ku hayaan waxaan ilaahay uga baryayaa jannatul firdaws inuu ka waraabiyo intii ku dhaawacantay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu caafimaad sareeca siiyo walaalayaal ilig liqanaysa waa ahladda al-shabaab waxay u baahan tahay jug yar jugta yarta inaan iskaalmaysano oo aan riixno ayaa la taagan yahay nin walbo jugtaas yaan lagaaga hormarin intaan lagaaga hormarin qofku ugu horeeyo noqo gadaalna yaan la isku dhigin yaanan laga cabsanin xilligii cabsida waa dhammaatay xilligii al-shabaab laga baqayay waa dhammaatay iyagaa hadda cabsi ku jiro iyagaa gacmo ku gabad ah meel looga haraana ma jirto xoreyntan waa say u bilaabatay dalkoo xor ah dadkoo xor ah anoo balan ah waan idin wada salaama anoo ku hadlaa magaca jaaliyadda UK dhalinyarta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dacro mahadsan tahay allah naxariista aabe waxaan iminka mikrafoon kusoo dhaweynayaa dhanka dadweynaha qofka ugu dambeeyey aan khudbadda siiyo mudane cali odawaa cali sahal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلكان سلام كالي الله ومرنا دمان سفير كنا دولة الصومالي وجوجو دالكن UK سفير عبد القادر دمان جالية الصوماليات كسو غيب قال حفلة أنو ما وضو قربت بدن وعد بدن ما وضو جس وحان كعذر داريا دليرت ماشان كم مكان ونمكا واه لفدبركا halganka ka socdo gobolka iyo dhamaan gobolada nagu xeeran waxaan si hoos ugu waramaa gobolka Hiiraan dhalinyarta halkan ka maqanaad caawa aragtaan magaalada geesaheeda ay tagaasi iyo dadka ugu qidmayaan si ay u garab istaagaan qotulyoonka daruuriga ay ku shaqeeyaan ciidamada mujaahidiinta ah ee dagaalka kula jeeda kooxda argagixisada ah dadkan iyo dalkeena dhibaatada ku ah furmaha runtii waad ogtiin ciidamo fara badan ah joogo waxaan ka waramaa gobolka Hiiraan ilaa iyo 15 ku 20 ku dhawood ciidamo aanan mishaar qaadan oo dawli ahayn oo dad mutadawiciin ay is-abaabulay ay ku jiraan dagaal kaalmo dawladeedna aysan ka badnayn boqolkiiba 20 laakiin 80 ka kaleeto
waxaa dhammaystira u buuxiya dhallinyaradaas meelaha qaar iyo furmaha qaar waxaanu gaarsiinaa raashin hadda aan idinla hadlayo bisha hadda soo socoto furmo waxaa jiro wixii ay cuni lahayn aanu hormarinay waxaa bixiyay dhallinyarada kuraastaas ka maqan maadaama ay og yihiin in halganku dhaqaale ka rabo waxay ku jiraan sidii ay dhaqaalahaas ku shaqayn lahayn caawa oo axaada way u suurtagal weysa inay ka soo qayb galaan heer waxaan gaarsiinaa furmaha qaar aan u samayno cook ama cunno u kariyo oo runtii aanan hore uga dhicin Soomaaliya in ciidan furan ku jiro mujaahidiina loo sameeyo cook marka waxaa sameynaya waa dhalinyarta gobolka Hiiraan runtii gacantooda aad ayay u gaartay 15 kun oo ciidan ah oo aysan dawladda aysan si toos ah u taageerin waxa ay ku dhaqaaqaan iyo waxa ay cunaan iyo shidaalkooda nimanka bixiya dhalinyaradaas waaye waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya oo dhan nimankaas waanu baabiinay inta yar haraadiga hartay insha Allah inaad nala dhamaystirtaan si Soomaaliya nabad iyo farxad ugu naalooto waadna mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay dhammaantiin waa mahadsantihiin waqtigiina qaaliga waxaan ka codsan lahaa inaad idinka codsan lahaa mudanayaal iyo marweyn inaad shaqarta yareysaan waan ogahay dagaalkii afka iyo ilkaha ayaa bilowday laakiin shaqarta yareeya waxaan noo haray khudbadda safiirka Soomaaliya ee Britain mudane Axmed Khayr hase ahaatee safiirka waxaan ka hormarin doonaa oo khudbadda kusoo dhaweyn doonaa qunsulka Soomaaliya ee dalka Kuwait mudane Cabdi Cumar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين مركورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركعية سفير الصومالي وجوه دلكن UK عبد القادر أحمد خير عبدي قدومية كحجين كهراء قبل كبنادر قدومية قبل كبنادر هراء عنده إبراهيم ديرة قدومية هراء قبل كهيران عبد فارح odayaasha dhaqanka oo horeeyo Yaasiin Bulsho معاه إياه حسين agaasimaha ururkaas iyo walaashay waad soo dhaweynaya kulligiin waad salaamaya assalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta kadib walaalayaal hadal badan hama laga buuxshaa la yiri Soomaali kulligeed waxay maanta isku raacday in lala dagaalamo al-shabaab in laga saaro dalka shacab iyo dawladba maanta waxa loo wada heelan yahay oo la isu raacay in lala dagaalamo oo dalka laga saaro argagixisada waxaan xusuustaa waagii hore inta aysan ka bilaaban gobolka Hiiraan oo aysan bilaabin macawisley dagaalka dadku aad uguma dhiiran jirin inay ka hadlaan al-shabaab waliba dadka jooga qurbaha aad bay u baqi jireen waxaan xusuustaa nin hadda koor aan xaflad ugu yeeray saaxiibkay oo yiri maxay ahayday ma imaan karo maxaa yeelay Soomaaliya u socdaa haddana maalin dhaweeto waxaan arkayaa isagoo media ka hadlayo marka taa darteed waxay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed maanta kulligood ay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan argagixisada al-shabaab waxaan rabaa qodob yar kaliya aan ku daro aniga shakhsiyan waxaan ka mid ahay victimka ama dadka ay dhibaatada u geysteen al-shabaab waxaan goobjoog ahaa qarixii SYL habeen iyadoo laga soo baxay salaada maqrib oo cishaha la geli rabo ay soo galeen al-shabaab oo ay ku dileen dad badan aniga alxamdulilaahi rabbil caalamiin darbigaan ka booday gacantaan ka jabay inkastoo la dhihi karo fulayaan ahaa laakiin dad badan baa halkaa ku naf waayey oo ay ku dileen saa darteed marka dadka Soomaaliyeed kulligood waa victim qisooyinka la yaab kale ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxa kamid ah nin baa qarax ku dhacay qaraxi markuu ku dhaco labada dhagood ayaa shib yiri qarax labaad haddana ku dhacay labada dhagood u furmay marka waa mucjisooyinka ay nimankaasi u geysteen wadanka Soomaaliya sidaa darteed walaalayaal waxa muhiim ah in loo wada istaago wax yar baa dhiman
dowladdana runtii shaqada ay wado iyo halka ay wax marinayso insha allah safiirka ayaan u daynayaa isagaa nooga warrami doono waxaan idiin rajaynayaa runtii inaad garab istaagtaan waxaan u mahad celinayaa dadkii barnaamijkan runtii sida aadka wanaagsan u soo qaban qaabiyey oo u horreyso walaashay qaali beerula oo runtii aad aan ugu ammaanayo shaqada badan ee ay ka qabatay halkan iyo sida ay maaragtay maalin walba u taagan tahay marka waxaan isleeyahay reer hiiraan waxay bilaabeen dagaalkii la dagaalanka argagixisada haddana waa inay bilaabaan dagaalka la argagixisada ee qurba joogta dhinaceedana waa inay hadda ka bilaabaan oo iyagu ay hormuud u noqdaan sida ay caawa isugu yeereen ummadda soomaaliyeed mar kastana ay sidaa hormuud ugu ahaadaan waxaan jeclahay inaan waqtiga oo kooban awgiis ku soo dhoweeyo safiirka dalkan UK cabdiqaadir axmed khayr cabdi ku soo dhowow sacad safiir بسم الله runtii maadaama xafladda ay aad u bilaabatay waxaan rabaa inaan qof walba oo halkan jooga aan ka salaamo caawa madaxda sharafta loo halkan nala fadhisa jaaliyadda haweenka dhallinyarada qurba joogta halkan nala joogto oo dhan kulligii waan idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii caawa sharafay ii tahay inaan ka soo qayb galno xafladdan oon muxuu ahaay ugu ducayno aan wax ku taageerno walaalaha ku jira farantiga oo dagaalka ah walaalahaas oo ah dadka xabadda u dhigay xabadka oo muxuu ahaay maalin intay istaageen yiri enough intaas waa nagu filan tahay in shabaab uu waddankeenna gumaysto uu dullaysto ummaddii soomaalida ku kor socdo inay yidhaahdeen enough waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay runtii inuu yahay gobolka hiiraan gobolka u istaagay xoreynta waddanka soomaaliya ma aha keliya inaan ka soo jeedo aniga gobolka hiiraan laakiin gobolka hiiraan mar walba wuxuu u taagnaa xoreynta ummadda soomaaliyeed haddii aabbayaashan iyo awoyaashan ee 1950 ilaa 60 waddankaana u xoreeyeen maanta waa maalinteennii annaga maanta waa maalinteennii qof walbana meel qayb ayuu ka qaadan karaa marka ummadda soomaaliyeed ee u istaagtay inay xoreyso waddanka soomaaliya ee tiri enough waxaa loo baahan yahay in wax walban awoodno aan ku xoojinno allah u naxariisto intii shahiiday inta dhaawacana allah bogsiyo annagana kulligeen waxaa nalaga rabaa in aan haddii aan maanta waddanka joogno loo shubi lahaa qofka soomaaliga ah ee dhaawaca dhiig haddii loo shubi lahaa maanta annaga dhiigga aan bixinayno waa dollarka iyo poundka aan dirayno dhiiggeenna kaas waayo marka ha lagu dhiirrado yaa laga cabsanan sidii dadka haddaa iga horreeya sheegaan maanta waa lagu dhiirran karaa in la cambaareeyo laiska dhiciyo lala dagaalamo maaragtay muxuu ahay laga hor yimaado dhibkooda iyo dhibaatada ay dadka nagu hayeen fiiri soomaaliya 30 sano yaan dagaal ku jirray marka annagoo intaasoo dhiba soo marray soo qaxnay adduunka alaska ilaa australia tagnay in maanta intay kacaan dad iska dhigaya inay soomaali yihiin iyo dad kale oo muxuu ahay iyaga muxuu ahay la guruub ah inay intay kacaan yiraahdaan magac diimeed waa idinku gumaysanaynaa wax dhacaya maaha soomaaliya oo 100% dadka muslimiin yihiin qof ku gumaysan kara magac diimeed ma leh gobolka hiiraan oo laga bilaabay halganka laakiin kuma ekaanayo halkaas waxaan rabnaa magaalo kastoo soomaaliyeed in laga xoreeyo muxuu ahay khawaarijtaas iyo argagixisada markaan taas ka gudbo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii halkaas soo qaban qaabiyay xafladdan waa runtii waxaana loo baahan yahay xafladdan oo kale in la sameeyo isbuuc walba ama bil walba hadday suuragal tahay in la sameeyaa loo baahan yahay oo dadka lagu taageero haddii xataa aan hool la siinin hooba in lagu taageeraa loo baahan yahay mar kasta oo la joogo ay arkaan in dadka halkan jooga aysan hilmaansanayn aysan dadka waa ogtihiin marka waddankeena joogo qofka qurbaha jooga waxaa laga aaminsan yahay inuusan waxba kala socon waddanka laakiin soomaaliya waxa badbaadiyay waa qurba joogta waad ogtihiin waad la socotaan sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in si fiican loo taageero taas markaan ka gudbo hal waxoo kale ayaan ku darsanayaa waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in dhowaan la furi doono safaaraddii soomaaliyeed ee london
xafiiskii waa diyaarinay waxaan ku wadnaa qalabayntii iyo hawshii bisha 9keeda hadduu ilaa yidhaahdo safaaradda soomaaliyeed oo calan ka taagan yahay yaa arki doontiin marka taasna waxay ka mid tahay halganka aan kula jirno al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu